gododada dhulkeenu habeenkay gilgilatee guddidii heshiise golaatooradee sare gododada dhulkeenu habeenkay gilgilatee guddidii heshiise golaatooradee sare taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guusha nololeed taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guusha nololeed wixii u geeyey gabadhyay balii sheeg gabadhyay balii sheeg wixii u geeyey gabadhyay balii sheeg gabadhyay balii sheeg بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa warbaahinta Toga Herer oo had iyo jeer kala socotaan barta internet-kan ku leenahay ee togaherer.com maanta waxa aanu magaalada Oslo waraysi kula yeelanay Baashe Maxamed Muuse oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Oslo Baashe waxaanu ka wareysan doonaa waraysi dhinacyo badan taabanaya kaasoo ka ay qayb kamid ay taaban doonto doorashadii dhawaan ka dhacday ee magaalada Oslo iyo guud ahaan dalka Norway sidoo kalena waxaan ka wareysan doonaa haradkii shalay toole ka qabsoomay magaalada Oslo Baashe bal markuu ku soo dhawow warbaahinta Toga Herer bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan kugu mahadinayaa Cabdi Wahaab adiga iyo warbaahinta Toga Herer iyo dhageystayaasha warbaahinta Toga Herer runtii farxad gaar ah ay tahay maanta in aan fursad u helo mikrofoonka Toga Herer Baashe su'aasha ugu horeysay ku weydiinaya waxa weeyaan xildhibaan dhawaan waxa ka qabsoontay guud ahaan dalka Norway doorashadii golayaasha deegaanka runtii guul darro ayaa Soomaalida kala kulantay halka xildhibaanadii ay ku lahaayeen magaalada Oslo oo ahayd magaalada ugu xildhibaanada badan ayaa lagu waayay maxaad soo kartaa way sababtay in aad xildhibaanimada akuraastiini weydaan runtii doorashadan golaha deegaanka dalka Norway oo dhacday sanadkan waa run Cabdi Wahaab 428 commune ama degmo ay doorashadu ka dhacdo dalka Norway iyo 19 gobol ee Norway haddii aan ku soo dhawaado magaaladan Oslo oo ka kooban 15 xaafadood ayaa waxay doorashadu ka dhacaysay 15 xaafadood oo maamul hoosaadkoodii dhisanayay iyo baarlamaankii magaalada Oslo waa runtii waxa waayay waxaanu hayn 3 xildhibaan oo Soomaaliyeed ku jira golaha deegaanka iyo mid Afrikaankana qayb ka mid ah nin kale oo isaguna Afrikaana marka dhammaan ciidamay soo bixin dhinaca Afrikaanka qofku ma soo bixin waxaanan u malaynayaa kulay sababta waa la iska garan karaa iyadoo dad badan ay sharaxnaayeen oo kulay isbarbaryac dhacay taasina ay noqotay inaan codka la midayn oo meel toos ah codka lagu wada shubin runtii waxa laakiin farxad leh in xisbigayga waa xisbiga shaqaalaha uu guulo weyn ka soo hooyay dalka oo dhan ilaa community dalka oo dhan municipality-yada ama magaalooyinka dalka oo dhan waaweyn ku guuleystay caasimadan Oslo caasimada labadaada Bergen magaalada Trondheim oo hore haystay iyo magaalo kale oo Haugesund leeyahay magaalooyinka waaweyn oo dhan inaanu gacanta ku dhignay isla markaana guul badan buu xisbigu soo hooyay laakiin xildhibaan ahaan runtii maana soo bixin anigu waxaan helay cod badan oo ilaa 2300 oo cod ka badan waxyaalaha runtii ugu muhiimsanayd in aan soo bixin waxa kamid ah iyadoo xisbigu uu sharaxay wajiye caan ah oo la yaqaano oo dalka ka tirsan oo kamid ahaa ra'iisul wasaarihii hore
aabbihii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Norway uu sharaxnaa. taasi marka waxay keentay in codkiina laga sugayo noqdo cod aad u sarreeyo 3,000 ama 4,000 ku dhadhow. marka taas ayaa keentay in aanu maaragtay inaanaan soo bixin. laakiin shacabka Soomaaliyeed runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. ilaa 7,000 oo qof in ka badan ayaa codeeyey. xildhibaanada sharaxnaa waxay ka badnaayeen ilaa 7 xisbiyo kala duwan bay ka sharaxnaayeen. marka 7 xildhibaan markay sharaxayeen waad garan kartaa iyo codkii inuu qaybsamay. codka ugu badan runtii waxaa la siiyey xisbiga shaqaalaha dadka Soomaaliyeedna ay codeeyeen. cod ilaa ka badan 4,000 oo cod ayay heleen. haddana maana soo bixin waayo codkoo qaybsamay. waxaad sheegtay in kulli ay wada weydeen. waxaad sheegtay 7 xubnood inay sharaxnaayeen. 7 xubnood bal noo kala sheeg si ay u kala sharaxnaayeen iyo codadkay kala heleen. 7 xubnood aan ka bilaabay xisbigayga kolley anigu anigu ka sharaxnaa iyo gabadh. labadayadu markaa anigu waxaan helay ilaa 2,300 oo cod. gabadhana waxay heshay ilaa 1,700 oo cod. markaa ilaa adigu 4,000 iyo waxoogaa cod ayaan halkaa ku helay haddaanu nahay xisbiga shaqaalaha. waa codkii ugu badnaa. dad badan oo Soomaaliyeed baa runtii iyaguna u codeeyey xisbiga oo iyagu aan markaa annagana dooran laakiin warqadii xisbiguna codeeyey. waxaa jira nasiib darra dad kale oo Soomaaliyeed oo iyaguna u codeynayay dad Bakistaan ah oo iyaguna runtii cod bixiyey oo markaa codkoodii qof Bakistaaniya siiyey. taas kolley dhibaatadeeda iyo divisionkeeda iyo qaybteeda ay leedahay. xisbiga kale ee garabka bidixda la yidhaha SVga waxaa ka sharaxnaa 4 xildhibaan oo Soomaaliyeed ayaa ka sharaxnaa. markaa runtii waxay kala heleen xildhibaan wuxuu helay 4 ilaa 450. gabadh kalena waxay heshay 500. laba wiil oo kalena waxay kala heleen 300 iyo 300. marka xisbigan la yidhaha garabka bidixda wuxuu helay ilaa 1,600 cod. xisbi kale oo isaguna la yidhaahdo xisbiga cas ama rit la yidhaahdo oo isagu dhinaca shuuciyadda u janjeera ayaa isaguna 600 oo cod helay. marka runtii marka la isku soo xooriyo waxaanu helay cod ilaa 7,000 oo cod oo runtii ay shacabka Soomaaliyeed bixiyeen. marka nasiib darro 7da ma yeelan tayadii iyo natiijadii laga sugayey may helin. laakiin runtii way dareemeen shacabku codkoodana way dhiibteen. waxaa laakiin guul ah in qofku fahansan yahay inuu codkiisa dhiibto. waxaad sheegtay 7,000 oo cod in la codeeyey. 7,000 waxaan isleeyahay 2 cod way soo saareen 2 ruux haddii la midayn lahaa. intii aanay doorashadu dhicin jaaliyaddu ma kulanteen idinkuma kulanteen bal si dee 2 ruuxun loo soo saaro ama codka la mideeyey. su-aasha kale ku weydiinaya waxay tahay codkii Soomaalida oo dhan Soomaalida degan Oslo ba 7,000 ayuu noqday mise weli qaar baan codaynba. cabdiwahaab runtii waa runtaa haddii la tashado codka la mideeyo laysu tanaasulo waxaa soo bixilaa 2 xildhibaan way soo bixilaa si fiican oo xaraga leh ay xisbiga shaqaalaha uga soo bixi lahaayeen. waa xisbiga shaqaalaha 3,000 iyo waxbaa lagu soo gelayaa oo codkiisa aad iyo aad u maaragtay u sarreeya. oo sidaasay dee noqon lahayd runtii haddii la mideeyo waxaan kuu sheegayaa in aan wax kulama oo jaaliyaddu yeelatay jirin. in laysu tanaasulo in la wada hadlo in codka la mideeyo in la tashado oo la yidhaahdo maaragtay xildhibaanaynu maanta leenahay inaan waxba waayin. arrintaasi marna umay dhicin oo dee hore umay dhicin oo arrintaasi arrin dhacday ma aha xilligii doorashadan. marka haddaynu dib ugu soo noqono jaaliyadda Soomaaliyeed oo aan u malaynayo magaaladan Oslo inay 20,000 ka badan tahay. markay Soomaalidu tahay ilaa 38,000 ama 40,000 ay sii cagacagaynayso iminka dalka Norway. boqolkiiba waxaa la yidhahdaa 45 ama boqolkiiba 50 ayaa degan magaaladan Oslo iyo agagaarkeeda. marka 20,000 qof oo cod Soomaaliyeed waxaa jira ee cod bixiyayaasha noqon karayay. waxaan u malaynaya inay dadka Soomaaliyeed 10,000 ama 12,000 gaadhayaan cod bixinta golaha deegaanka haysta. marka runtii dad badan oo Soomaaliyeed ayaan codayn aan codkooda dhiiban fahansanayna qiimaha uu codku leeyahay. balse jaaliyadda Soomaaliyeed marka loo eego sanadkii hore doorkii hore codbixinta waxay ku jirtaa jaaliyadaha ugu firfircoon ee ugu codbixinta badan. waxaana codeeyay ilaa boqolkiiba 65. waxaanay ku dhow yihiin runtii Norwejiga aad iyo aad ugu dhow yihiin. 65 xagga dhalinyarada u badan yihiin iyo 59 ayaa codku intaas u dhaxeeyay. marka waa jaaliyadda ugu codbixinta badan runtii. markaan adiga kugu soo noqdo adigu xisbiga shaqaalaha ka tirsan tahay weli xildhibaan baa tahay oo muddadiinii weli may gaadhin ay wareejinayseen xilka. xaggee aad ka jirtaa xisbiga markaa maadaama xilkaaga weyday maxaad imika ka haysaa ma waxa mas-uugaa tahay bal cayn ku yahay xaaladaada xisbiga gudihiisu. runtii xisbiga dadka ku jira waxay u qaybsan yihiin 2 qaybood. dadna waa dad shaqo rasmi ah xisbiga oo hayo xisbiga u shaqeeya. xildhibaanka markaa tahay dalka Norway runtii intayada badani ma haysano shaqo maaha goob shaqo laakiin waa goob maaragtay aad ugu shaqaynayso si iskaa wax u qabso ah.
marka sidii habkii iska wax u qabsa ahaa ayaan member uga ahay waxaan noqday xubin sugayaasha koowaad ayaan ka mid ahay ee kaalinta imika darka saaran markaa maadaama aanu xisbigay ku guulaysanayno governing maayarka ama maayarka adag ee awoodda leh aanu la wareegi doono ayaa waxay u badan tahay haddii ilaahay idmo inaan soo geli doono waayo halkan marka dowlad baanu dhisaynaa markaa ilaa 7 waaxood ama 7 wasaaradood baa la dhisayaa markaa 7 wasaaradood haddii xisbiga ilaa 4 uu ka helo 4 qof ee ka baxaya maaragtay councilka iskuma hayn karaan labada jago taasoo micnaheedu yahay inay banaynayaan jagadoodii oo markaa jagada aanu anagu dib ugu sii durkayno marka jagada imika xisbiga waxaan u hayaa sidaydii hore un baan ahaanayaa xubin sugaan ahaanayaa oo markaa shirarkii waan imanayaa sidaydii baan u tegayaa go'aan qaadashadiisa bay noqonaysaa wax badan iskama kay bedelayaan runtii intanaan joogo laakiin xubin rasmi ah ma ihi xubinta rasmigana waxay kala caddaan doontaa ilaa bisha 21 Oktoobar bishan aynu ku jiray 21 Oktoobar ayaa waxa ayaa golihii deegaanka cusbaa la saaraya xilka marka adigu ilaa 16 bisha ayaa la ogaan doonaa bal inaanu soo galayno iyo sida dawladdan loo dhisayo annagoo cabdi haddaan kugu daro la shaqayn doonaa kolley coalition baa jiri doona ama xulufaysi marka xisbigaygu wuxuu la shaqayn doonaa xisbi la yidhaahdo Milyo Baatiyada Green ama xisbiga Greenka ah ee dhinaca dabeecadda iyo deegaanka u janjeera oo runtii 5 cod helay annaga oo 20 helay oo 25 tahay iyo xisbiga kale ee garabka bidixda oo la yidhaahdo RUT oo isaguna runtii helay 3 cod iyo xisbiga SVga la yidhaahdo ama isaguna garabka bidixda la yidhaahdo laakiin kale waa shuuciga marka aan isku soo duubay 26 cod ayaanu helay haddaanu nahay garabka bidixda 26 kayaga cod waxay u baahan yihiin 5 cod ama ilaa 4 cod bay u baahan yihiin si aanu markaa 59 mudane majority u noqono marka xisbiga la yidhaahdo dhinaca dabeecadda u janjeera ama deegaanka ayaa naga dhigaya ilaa 30 buu naga dhigaya taasina waxay noqotay in aanu sanadkan soo dhisayno dawladdii ama baarlamaankii magaalada Oslo haddii ilaahay idmo 21 Oktoobar baana la soo dhisaya ka aan laba su'aalood kale ka weydiinaya magaalooyinka wax ku guuleysan jiray waliba siiba Oslo garabka midigta midigtu waxa ugu weyn qaybta la yiraahdo midigta ama ururka la yiraahdo midigta marka af Soomaali ahaan lagu sheego iyo ururkan isna la yiraahdo xaq jirka waxa la sheegay in hoos u dhac badan ku yimid sanadkan bal halka Soomaalida u faahfaahiyay dadka dhimxada daawanaya cliptan horeysa anoo xisbiga ka wakiilo waxaan u mahadnaqayaa shacabka Soomaaliyeed oo si hagar la'aan ugu codeeyay xisbiga shaqaalaha marka haddii aan halka waxoogaa yara faahfaahiyo dadka ajnabiga iyo muslimiintu runtii si aan caadi ahayn ayay ugu codeeyeen xisbiga shaqaalaha marka dadka codka lahaa haddii aan ku bilaabo magaaladan Oslo ka codeyn karaya golaha deegaanka waxayna 480,000 oo qof ay ahaayeen marka markii ay dadkaasi codeeyeen ayaa waxaa la kulantay runtii guul darro laxaad leh xisbiga garabka midigta ama muxaafidka la yidhaahdo kaasoo markaa waayay 3 kursi oo ka mid ah kuraastiisii isagoo 22 lahaa 19 ma ka helay taasi markaa guul darro weyn ay runtii ku riday waxaanay waayeen maayarkii waxaanay noqonayaan xisbi mucaarad ah xisbigan kale la yidhaahdo xaq jirka ama FRP-ga la yidhaahdo isaguna runtii guul darrooyin badan baa runtii la soo waajahay laakiin se yeeshee 4 xubnood weli wuu yeelanaya oo 4 xubnood buu haystaa marka waxyaalaha runtii ay shacabku sameynayeen ee maaragtay uu ku guul daraystay xisbiga muxaafidku waxa kamid ah isagoo 18 sanadood magaaladan soo hayay iyadoo shacabku markaa reer Oslo ay dareemeen dhibaatooyinkii abuureen iyo carqaladihii oo runtii ah xisbi u daneeya dadka hantiilayaasha ama maalqabeenka xisbi aan daryeelin dadka shacabka xisbi runtii ku adkeeya nolosha dadka maaragtay jilicsan marka qaybtii waxaan oran karaa dadkii shacabka ahay bulshadii danyarta ahayd ayaa riday oo fahantay oo codkeeda dhiibatay taas ayaa runtii guul darrada koowaad la oran karaa iyo dhinaca siyaasaddiisa runtii oo ay u muuqato runtii in uu sanadkan xisbiga muxaafidku dawladdii buu haystaa waxaa marka la leeyahay maadaama aad dawladdii dhexe gacanta ku hayso way adag tahay inuu xisbi isku haysto caasimadda iyo dawladda dhexe taasna waa waxa loo aanayn karaa markaa in ay guuldarrooyinkiisa sababtay oo ay ka degaan waxyaalaha cajiibka ka daran waxa weeye caasimadda labaad ee magaalada Bergen oo aan weligood laga qaadin ay iyana awooddoodii waayeen waxaana arrintaas sababtay iyadoo ay fadeexaday ku dhacday oo markaa gabadhii maayarka ka ahayd ama maayarka awoodda badan in ay ninkeedii arrin corruption samaysay oo ay maaragtay si gaara wax u siisay
dabeedna markaa si gaara mashaariic u siisay taas oo ay saxaafadda soo bandhigtay taasina waxay keentay in laga guulaysto maantana waxaa markaa maayarka ah magaaladaas xisbiga shaqaalaha ee aan ka tirsanahay marka runtii sababahaasoo dhan ayay maaragtay ayaa dhibaatada u keenay iyo iyadoo laleeyahay runtii messagekoodii ama way ka dhaadhicin kari waayeen inay ku guulaystaan inay dadka hantaan oo ay abiil u diraan oo yidhahdaan noo codeeya taa messagekaasna runtii way gudbin kari waayeen ayaa laleeyahay marka saddexdaa qodob ayaa marka laysu soo xooriyey laleeyahay ayaa u sababay inuu guuldarrooyin la kulmo xisbigan conservativeka ama xisbigan muxaafidka sabab kaloo imika dhowaan iyana laga dhawaajiyay baa jirta oo arrintan qaxoontigii oo kusoo qulqulaya qaaradda yurub ayaa runtii waxaa laleeyahay qaxoontigaasoo soo socda oo runtii halisba gelin kari lahaa garabka bidixda noo ka tirsannahay ayaa runtii waxaa aad iyo aad runtii aad moodaa in loo ammaano chancellarka jarmalka oo iyadu markaa runtii arrin solidaritya ama wadajir ah bilowday oo markaa tidhi waxaan ku soo dhoweynayaa qaxoontiga dhammaan qaxoontiga dalka waddankada yurub gaar ahaan ilaa 800,000 iyadoo u ballan qaaday inay dalkeeda soo galaan taasi markaa waxay noqotay maskaxdii iyo aragtidii qaxoontiga laga haystay ee loo arkayay dad wax qarxiya dad xun ayaa mar keliya isbedeshay taasina runtii annaga guul ayay xisbi ahaan noo soo hoysay iyo dadka jecel bini aadanka iyo in la isdhex galo doonaa dardaarankaaga xagga doorashooyinka iyo waxaa shalay waxaa dhacay mudaharaad intaana mudaharaadka bal u geyn hadii jeer soomaalida dhib badan baa lagu hayaa ama ubad ha laga qaato ama dadkooda hala dilo ama fadeexad jinsiyana ha lagu sameeyo maxaad u malanaysaa inay sabab u tahay arrimahaas cabdiwahaabow arrimahaas runtii siyaalo kala duwan baa loo sharaxi karaa laakiin kow waxaa lagu sharaxi karaa waxaa la odhan karaa waxa sababaya iyada oo shacabka soomaaliyeed runtii ay yihiin shacab soo barakacay joogayna dalkan marka laysku celceliyo afarage ahaan joogay ilaa 5 sannadood soo barakacay dalkii aan la qabsan dadka shaqeeya cududda shaqeysa ay yar tahay taasina ay tahay markaa inay dowladda badankooda ku tiirsan yihiin oo ay dhaqaale dowladda ka helaan inay leeyihiin caruur badan qoysas caruur badan oo markaa guryo yaryar ku jiraan arrimo badan oo cidhiidhiya oon u saamaxayn inay mujtamaca sidii la doonayay uga qayb qaataan ayaa jira taa marka laga yimaado maamul xumo badan baa jirta oo iyadoo jaaliyadu badan oo tiradeedu aad iyo aad u badan tahay ayaa haddana waxaa jirta tayaxumo aad u badan iyadoo jiraan ilaa 350 organisation in ka badan ururo oo markaa runtii urur waliba doonaya inuu wax qabto ama aan waxba qabanaynin ayaana waxaan u suurtagelin soomaalidu inay hesho urur weyn oo mideeya oo isu geeya oo markaa majaraha u qabta oo ku hogaamiya soomaalinimo iyo dhibka halkan kasoo wajahaya marka runtii anigu waxaan u aanaynayaa in arrintaasi ay tahay maamul xumo iyo hoggaan xumo shacabka la soo daristay oo aanay lahayn hogaamiyeyaal adag oo isku tiirsan oo meel uga soo wada jeesta dhibka soomaalida oo mideeya ma jiraan muddo aan sii fogeen waxaa dhacday dhacdo aada fool xun oo dadka aada uga wadan xisay hooyo soomaaliyeed oo carruurteedii haysata ayaa niman boolisi xabad ku dhufteen iyagoo heli karayay waxyaalo kale inay farsamooyin kale inay kaga qaadaan midi ay lahaayeen way sidatay bal arrintaa faahfaahin naga sii marka ugu horeysa weji bay leedahay oo runtii xabaddaa dhacday waa baadhitaan socda oo dee runtii marka ugu horeysa waxaan uga tacsiyadaynayaa runtii gabadhu way nooshahay way fiican tahay haddana waxa weye arrin murugo leh in hooyo soomaaliyeed oo caruur leh xabad lagu dhufto oo ay xabadi ku dhacdaa waa arrin jaaliyadda soomaaliyeed taabatay waa arrin murugo ku abuurtay waa arrin si gaara u taabatay hooyooyinka soomaaliyeed oo runtii ka oohisay naxdinna ku riday su-aasha la isweydiinaya waxay leeyahay yaa ku xigi doona waayo hooyooyinka soomaaliyeed dadka soomaaliyed waxay soo mareen dagaalkaasoo markaa ay xusuusisay in weliba la toogan doono iyagoo ay hooyooyin badan runtii dad badan xanuunsanaya hooyinka u badan oo ay maaragtay jilicsan yihiin dadku faamiliya badan iyo qoysas badan ay dhaqaale xumo hayso aanay shaqaynin guryo xumo hayso taasna waxa ugu sii darsantay xabad horta taasi waa nasiib darro dhacday oo runtii ilaahay subxana watacaala waa qadar min allah ka timi waxaan haddaba taas mid waxa weeye qoyskii iyo qaraabadii iyo arrintii dee arrintani ku dhacday way ku jiraanoo de wixii sharci ahaa iyo baadhitaankii wuu socdaa taa ma gelayno taynu gelaynaa waxa weeye maxaa waajib kaga ahaan jiray inooga yaalla haddaynu nahay jaaliyadda soomaaliyeed ee norway markay arrintanoo kale dhacdo inaynu ka yeello waxay ahayd in laysu yimaado laga wada hadlo dad yaroo kooban loo diro
dadkaa kooban guddigaasi ay ama mudaharaad soo qaabilaan soo abaabulaan oo isugu yimaadaan ama ay dowladdii la kulmaan iyo maamulkii sare oo ay markaa yidhahdaan arrintanaa nagu dhacday. qodobka saddexaad labaad wuxuu noqonayaa in lala kaashado jaaliyadaha kale ama muslimiinta ama norwejiga oo iyagaba ay ku dhici karto arrintan. sida aan tirakoobka ku arkay runtii bilayska Norway inagu hadduu mid inaga dilay waxaa laleeyahay sanadihii ugu dambeeyay ilaa 16 qof ayay xabad ku dhufteen. inaga muu dilin runtii gabadh baa la dhaawacay xabad, laakiin dee 16 kale oo Norway ah ayaa iyana dhaawac noocaas oo kale la gaarsiiyey. marka arrinta imika aad focuska loo saaraya waxa weeye in horta jaaliyadu dee inay isku duubnaato oo codkeeda oo midaysan muujiso. waxay ahayd in dee mudaharaadka marka la maamulayo anigu runtii ilaa 5 mudaharaad baan ka soo qayb galay. wada mudaharaadka marka la maamulayo waxay ahayd in la muujiyo jaaliyadu inay codkeeda muujiso oo ay meel uga soo wada jeesto ayay ahayd. taasina may dhicin. waa dhab si wanaagsan oo u faahfaahisay oo mid waa ka dhul sugaynaa baa tiri baaristeeda midna waad fasirtay. shalay waxaa dhacay mudaharaadka bal sidaad u arkaysay mudaharaadka iyo waxyaalo magaalada ku jira oo leeyahay sidii la doonayay umuu dhicin mudaharaadka ciddii abaabushay ciddii maamulkeeda lahayd bal intaas oo isku duuban faahfaahin naga sii. haddii aan ku soo dhawaado arrintaa waa run. marka mudaharaadka horta shalayta dhacay waxay shalayta maalin sabti ah oo ay dhammaan xafiisyada dawladdu xidhan yihiin iyo bilayskuba way xidhnaayeen. markaa mudaharaadka shalayta dhacay waxa soo abaabulay oo iska lahaa urur la yidhaha SOS Racisme oo ah maarad Save Ourselves in English lagu yidhaahdo. markaa ururkaas ayaa wuxuu markiisii horeba muddo ka hor dhowr bilood ka hor ayaa waxa uu qorshaystay inuu maaragtay dee inuu arrintan maaragtay uu mudaharaad dhigo. mudaharaadkaasoo uu qorshaystay ayaa markaa oo uu doonayay inuu dhigo ayaa jaaliyadda Soomaalidana waxay baryahanba ka shaqaynaysay bal inay mudaharaad arrintan ku muujiyaan ama banaanbax ra'yigooda ku saabsan iyagoo markaa aragtidooda muujinaya. marka jaaliyadda runtii way soo jiitantay oo miday ku qaadatay waxoogaa waa la raagay. markii u dambeysay muddo lala daahay ayaa jaaliyaddu runtii waxay la kulantay oo ay kulan la qaadatay jaaliyadda qayb ka mid ah waxa weeye group ama koox ka mid ah ayaa waxay kulan la qaadatay ururka SOS Racisme la yidhaah. anigu runtii goobtaa waan tegey. marka su-aasha meesha taallay waxay ahayd ma waxaynu qabsanaa mudaharaad Soomaaliyeed oo Soomaaliya hogaaminayso oo slogankiisii leh oo ereybixintiisii leh aynu inagu leenahay mise qoladan oo berrita dhigayso sabti ayaynu ku darsanaa. marka runtii dadkii meesha joogay waxay isku raaceen in lagu darsado oo saa lagu socdo. mudaharaadka sidiiba ku dhacay. marka runtii qoladan shirka abaabulaysa iyaga qudhoodu warka sidii dambe ay soo baxday runtii mabay codsanba xitaa ogolaanshihii bilayska mudaharaadka may haysan. marka taas micnaheedu waxa weeye maadaama ay iyagu lahaayeen mudaharaadka ay wateen ogolaanshihii may haysan. dee meediyada ma garanayo meediyada lama xidhiidhinoo meediyada waxa weeye miidiyada ama saxaafadda waa lala xidhiidhaa. shir jaraa'id baa la sii diraa. marka dee muu lahayn shirkaa jaraa'id muu jirin. warqad baa la qoraa baaq baa la soo saaraa baaqaa wasaaradda loo geeya ama bilayskaa loo geeya itijaah iyo meel lagu socolu lahaa. marka runtii intaa midna anigu maan arag. anigu markaa qabanqaabayaashii iyo fuliyaashii kamaan mid ahayn. hase yeeshee waan joogay goobta mudaharaadku ka dhacay iyo siduu dhacayay. markaa mudaharaadku runtii dee meeshii la tegayey iyo maamulkii maaragtay iyo meeshii lagu socday iyo waraaqihii la gudbinayey iyo hawshiisii muu lahayn oo kamay muuqan meeshii loo socday ciddii loo gudbinayay. waayo maalin shaqo bay ahayd in lasoo abaabulo dabeedna wasaaradda cadaaladda la tago ama bilayska la tago. taasina may dhicin. marka ciddii abaabushay ee soo qabanqaabisay ayaa mas-uuliyaddeeda leh iyo dee natiijadii ka soo baxday hadduu wax wacan noqday hadduu wax wanaagsan noqday. laakiin waxaan u hambalyaynaya shacabka Soomaaliyeed ee badnaa ilaa 200 ama 300 gaarayay ee soo baxay ee isu yimi ee gacanta isqabsaday ee ka qaylinaya lahaa maaragtay arrintaa ka xumaa iyo murugadii iyo tiiraanyadii ay muujiyeen. meesha waxaa maqnaa maamulkii iyo hoggaankii iyo hagiddii ayaa maqnayd. wanaagsan ayaad u faahfaahisay. kolley dad badani waa isugu yimaadeen. laftigeedu muuqaalkani awoodda ayuu tusayaa iyo midnimada. jimcaha waxaa loo ballansayay in mudaharaad aynu qabanno ka wada qayb galno. mudaharaadka maadaama aad khabiir tahay aad shalay kii dhacayna aad wixii dhacay inuu booliskii ma waaye saxaafaddii adugu Soomaalidu way muujisay waxoodii laakiin sidii la doonayay maynaan dowladda kamaynan helin.
jimcaha maxaad ku talin lahayd se maxaad haysaa talooyin si uu u noqdo mudaharaad midho dhala ugu xadidan yahay cabdiwahaab oo kolley wiig gudihii dee waa lagu qaban karaa anigu waxaan ku talin lahaa waxaynu u baahan nahay mudaharaadkaasi haddii uu noqonayo mid dee jaaliyaddu horta marka ugu horreysa in la iskaashado in khaladaadkii dhacay laga tanaasulo in laysu yimaado laysu tanaasulo oo ciddii kan abaabushay kuwii ka mid ahaa ay yimaadaan oy dad kale raadsadaan oo khubaraa anigu diyaar baan ahay runtii inaan ka mid noqdo waxaana jecelahay inaan runtii ka noqdo qayb ka mida oo hogaaminaysa kana mid noqonaysa jaaliyadda soomaaliyeed inaan mudaharaadkaas haddii mudaharaad la qaato maaragtay diyaar baan u ahay inaan ka qayb qaato waxaan marka ku talin lahaa in la sameeyo dad koox yar oo dad aan badnayn oo khibrad u leh oo aqoon u leh abamabilidda mudaharaadyada annagu waxaanu ka soo qaadanay mudaharaadyo badan baan runtii ka soo qayb qaatay mid inan soomaaliyeed oo la yidhi waa maaragtay lagu magacaabay inuu terrorista yahay ama inuu maaragtay wax qarxinayo oo argagixiso yahay ayaan u qabanay masaajkaanu ka soo dhaqaaqnay waxaa laga yaabaa ilaa 1,500 ilaa 2,000 oo qof oo soomaaliyeed in aanu ahayn miisaankeedu lahaa boorarka annaga qorannay socod baanu ka bilownay waxaanu ka bilownay Greenland meesha la yidhaahdo waxaanu ka tagnay baarlamaanka kii oo kale inuu noqdo ayuu ku wanaagsan yahay oo maaragtay dee laysu yimaado laysla kaashado gacanta laysqabsado oo dee markaa ay lagu daro qorshe dadkii saxaafadda qaabili lahaa dadkii dadka hogaamin lahaa dadkii waxaan qori lahaa intiiba dalkay joogaan intiiba waa Soomaali in loo yimaado aanay koox yar isku koobin ayaa loo baahan yahay aniguna waxaan jecelahay inaan mid ka mid noqdo qodob kalena waa la samayn karaa haddii la yidhaahdo war inaynu rogrogno dhahno war malaa waxaabay inoogu fiican tahay inaynu intaynu shir qabsanno shirkaasna dawladdii ugu yeedhno innagu waxaynu doonaynaa waa cadaalad ereyadii lagu dhawaaqay runtii waxay ahayd booliiska maaragtay dhibaatadiisa boolisku dhibaatadu dadka ku wado slogankii maynu lahayn shalay aynu sidnay waxa isla lahaa ururkii kala iska lahaa dawladda in maaragtay dawladnimada aan loo baahnayn hab yara qallafsan buu ahaa cunfi ku jiro murugada iyo tiranyada inagoo muujinayna cadaalad darra ayaa laynagu sameeyey cadaalad baynu doonaynaa cadaaladdana waxaa lagu doonaa inagoo dalkeenna norwayna ixtiraamayna dhaqankeenna iyo diinteenna ixtiraamayna slogankeenna sidana marka waa inaynu bilayska u tagnaa ama wasaaradda cadaaladda ama baarlamaanka tagno itijaah yeelano warqad gudbino taa haddii waa mudaharaadka haddii kalena intaynu isu nimaadno aynu markaa la kulanno dawladda ilaa prime ministerka aynu u tagno ra'iisul wasaaraha hor fadhiisanno cadaalad darrada laynagu sameey muujinno aynu gudbino warqad noocaasa inaga oo markaa meediyadeennii iyo saxaafadeennina wadano taasina waxaa weeye hab kale oo loo gudbiyo oo maaragtay dareenkeenna aynu u cabiri karno marka labadaa wejiba way furan yihiin marka runtii waxaan leeyahay jaaliyadda Soomaaliyeed way bislaatay arrintana way samayn kartaa waa inaanay dib u dhicin arrintan oo kale oo maaragtay qof Soomaaliyeed aanay arrintan ugu dhicin way mid kale loo ogaadaa shacabka Norway way isku raacsan yihiin bilayska imika hubka wuxuu haystaa muddo imika haddana 3 bilood baa loo kordhiyay ilaa bisha September shacabka reer Norway 80% in ka badan ayaa ka soo horjeeda in bilayska hubka la siiyo gacanta laga geliyo dhibka ugu badan imika saxaafaddu waxay sheegaysaa bilaysku inaanu uba tababarnayn ama uma diyaarsanayn inuu isticmaalo hubka waayo markaad arrin case adag u timaado ama meel dagaal ka socdo ama meel aanad mushkilad ka jirto waxa laga yaabaa ninkii bilayska ahaa berigii hore dhaqanku wuxuu ahaa hubku gaadhigu saarnaan jiray dabeedna nin kale mas'uul ka noqon jiray dabeedna meesha la eegi jiray marka hubku mudday qaadan jirto ilaa nus saac 20 daqiiqo kadib hubka la keeni jiray imika laakiin ninkii baastoolada halkan ku sitaa markiiba uu ridayaa marka waxyaalaha shacabka Norway ka gilgalanayaan oo laga yaabo in mudaharaad weyn laga dhigo waxa weeye in bilayska hubka laga dhigo aan loo ogolayn xisbigeyguna si toos ah ayuu uga soo horjeedaa habkii hore ayuu leeyahay ha lagu soo celiyo bilayska hubka ha laga dhigo bilayska hubka yaan gacanta laga gelin ugu dambeyntii guntii iyo gabagabadii maadaama oo aad waxa soo dhiba ka soo sheekaysay maadaama oo shalay Naruuro ay dib u soo noqotay oo maadaama dadkii Soomaaliyeed ay dadku shacabku iyagoo mida ay muujiyeen dhacdooyinka dhacaya inaanay raalli ka ahayn maxay tahay kelmaddaada aad shacabka aad u dirayso hadday noqoto in dhacdooyinka laga mudaharaado hadday noqoto in la iskaashado iyo hadday noqoto tan doorashadaba in dee laga midoobo asantahay runtii waxaan leeyahay marka ugu horeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala diinteenna inaynu marka ugu horeysa kaashanno inagoo diinteenna kaashanayna kow inaynu inaynu midowno inaynu gacmaha isqabsanno inaynu walaala noqonno inaynu ogaano dhibka inaga soo gaaraya Norway inuu ina midaynayo in dhibka qofka kale ku dhaca uu la mid yahay ka kale taas inaynu isku duubnaano inaynu markaa teela ka dhiganno imika doorashooyinka kala dhacay aad baynu u kala filiqsanayn waa inaynu wax ka baranno bulshadeenna
waa inaynu ogaano inaynu dhallinyaradeenna soo saarno waa inaynu xisbiyada la xisaabtanno inagoo codkeena isdana waa inaynu ka fakerno sida aynu cid baarlamaanka u geyn lahayn aynu ugu xisaabtami lahayn waa qodob inoo yaalla kama soo hadhayso in aynu ismaamulno masaajidkeenna kaashanno maanta 8 kun ka xubin ka yihiin ururada kala duwan iyo jaaliyaduna inay iskaashadaan waa qodobkaasi qodobka labaadna runtii waxaan leeyahay dhacdooyinkani waxaa laga yaabaa inay dhacaan dhacdooyinka waaweyn markay nagu dhacaan runtii waa inaynu isu nimaadno waa inaynu wada fadhiisanno waa inaynu wada hadalno waa in markaa dhallinyarada iyo dadka aqoonta leh la siiyo doorkooda waa in xildhibaanada iyo dadka Soomaaliyeed la tuhmayo ee khibradda leh iyagana lagu daro waa in odayada Soomaaliyeed qudhooda lagu daro waa in hooyooyinka laga qayb geliyo markaynu sidaa noqonno iska wada qayb gelina wax isu sheegno ayaynu noqonaynaa dad jira oo isku filan oo dantooda yaqaana oo wax iska celin kara waxaynu wax iskaga celin karnaa waxa weeye codkeena midaysan waa inaynu ogaano Norway waa dalkeenni inaynu dhaahno maaha booliska inaynu ku mudaharaadno waa sax khalad baa inagu dhacay khaladkani dad kale badan oo Norway ku dhacay intaynu siyaasadeena la nimaadno waa inaynu dhahnaa okay dhibaato dhacday laakiin yaa inagu dan ah waxa inagu dan ah qofka Norway-ga isaguna dhibaatadani gaadhay marka dadka oo dhan inaynu dadka Norway-gaana kaashano muslimiinta kaashano isku duubnaano marka shacab isku duuban ayaynu u baahannahay oo Soomaaliyeed oo hal meel uga soo wada jeeda aniguna xildhibaan maanta waxaan haystaa codka ugu badan kalsoonidii ugu badnayd baa isiiseen ballanna waxaan idinku qaaday haddii Ilaahay idma subxaanahu wa tacaala inuu igu kaalmeeyo inaan si cadaalada oo wanaagsan oo sharaf leh oo aan intii awoodeyda in aan bulshada ugu adeego sidii aan ugu adeegi jiray haddii aan xildhibaan noqdo iyo haddii aanan xildhibaan noqonba waxaan ballan idin qaadayaa inaan sidayda hore ahaanayo inaan naftayda u horeeyo shacabkayga iyo bulshadayda iyo ummadayda mahadsan tahay xiriirka nala soo xidhiidhay iyo kulankan kulannay iyo waraysigan qiimaha badan ee aad bulshada u soo gudbisay aad iyo aad baan Cabdi Wahaab kaaga mahadnaqayaa adiga iyo warbaahinta Toga Herarba waxaan leeyahay kaalinta ay ugu jirtaan bulshada iyo shacabka Soomaaliyeed ee qurba joogta gaar ahaan dalka Norway waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran aad iyo aad baa ugu mahadsantiin fursaddan ay siiseen iyo chance-kan aan microphone-ka maanta u helay inagoo fadhina hoteelka weyne caanka ee la yiraahdo Sadson oo ku yaala dhinaca galbeed ee magaalada Oslo